xafladda xariga looga jiray markabkan dasan lagu magacaabo oo dawladda Jabuuti ay leedahay ayaa lagu qabtay marsada Doorale oo ku taala duleedka caasimadda dalkani Jabuuti waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele kusimaha ra'iisul wasaaraha dalkani Jabuuti ahna wasiirka cadaaladda wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada dalkani Jabuuti ganacsato saraakiil ciidan iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan madaxda maamulka marsooyinka kala duwan ee dalkani Jabuuti waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti goobtaasi markii uu gaaray ku soo dhaweeyay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo sidoo kale maamulaha marsooyinka caalamiga iyo goobaha canshuuraadka ka caagan markabkan oo lagu magacaabo African Sun ayaa waxa uu yahay markab dhinaca xamuulka ah oo hoos imaanaya kambaniga maraakiibta ee dalkani Jabuuti markabkan ayaa waxa uu ka qayb qaadan doonaa si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda dalkani Jabuuti iyo caalamka intiisa kale waxa uu qaadaa 1,118 container oo 220 kamid ay yihiin containerada Afrikooga loo yaqaan ama qaboojiyaasha waxa ka shaqayn doona shaqaale dhamaantood reer Jabuuti oo iyagu waxbarashadoodii soo dhameystay goobtaasina ku sugnaa maamulaha marsooyinka caalamiga iyo goobaha canshuuraadka ka caagan Abubakar Cumar Xadi oo goobtaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu ka warbixinayaa ahmiyadda markabkan uu leeyahay markabkan waxa weeyaan capacity-giisu wuxuu qaadi karaa 1,118 container buu qaadi karaa oo 220 ay tahay containerada Afrikooga marka Mediterranean-ga dalalka ku yaala dalalka badda cas ku yaala iyo dalalka ku yaala Indian Ocean ayuu soo xiri doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa intaa kadib waxaan wax ka weydiinay bal dareenkiisa maanta maraakiibta waaweyn haddii toole inay galaan marsooyinka oo dhan ma waxay jecel yihiin in ay helaan qolo ka reebta oo iyadu wasacda ama qaybisa badeecada oo sida waxa weeyaan waxa la yiraahdaa cluster iska jira oo ilaa maanta maraakiib shisheeyay ay ku amal falaan kolka Jabuuti oo kale marka ay soo joogsato halka ay tiraahdo anaa inta hadhay shaqo ku leh min Masr kolka kaga soo qabato Mediterranean-ka ilamaan Indian Ocean-ka oo xagga Iran usii jeeda maraakiibtii wasacaysay badeecadka ganacsiga sahlinaysay ayaa yani aan jecelnahay annagu inaan dhex joogsano oo qaybteena ka qaadano waxa uu ka mid noqon doona maraakiibta waddankani jamhuuriyadda Jabuuti ay leedahay oo loogu talagalay dhinaca ganacsiga iyo wax isweydaarsiga caalamka ay Jabuuti la leedahay Mikael Cabdirashiid Bare raadi telefishinka qaranka Soomaaliyeed Jabuuti